السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan saxaabay meel kastoo naga daawareysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa talaado taariikhduna waxay ku beegan tahay 11 bisha Agoosto sanadka 2026. haddaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay xaaladda gobolka Bariga Dhexe. qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah Mareykanka iyo Xuutiga oo weeraro kala duwan ku qaaday maraakiib maraysay Hormuz iyo Bab al-Mandab. xaaladda Bariga Dhexe oo mar kale cirka gashay. haddaba tafaasiil ku saabsan weerarada Mareykanka iyo Xuutiga ay kala qaadeen. waxaa soo kale aan idin haynaa Pakistan oo wafdi heer sare u dirtay magaalada Tehran ee caasimadda Iran, iyagoo halkaa wada hadallo kula qaadanaya mas'uuliyiinta dalkaas. ujeedada safarku maxay tahay? dhanka kale Pakistan oo war rasmi ah ka soo saartay halka ay marayaan wada xaajoodka lagu doonayo in heshiis ay ku gaaraan Iran iyo Pakistan. qodobadaas aynu barnaamijkeena labaad maanta oo talaada ku soo qaadanaynaa. intaan ku jirnana wixii warar soo kordha waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa talaado taariikhduna waa 11 bisha Agoosto sanadka 2026. haddaba barnaamijka waxaynu idinkugu haynaa akhbaaraadkii iyo wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn. ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa laba weerar oo kala duwan oo maraakiib nagta looga saaray ayaa waxay ka kala dhaceen goor dhaweyd Hormuz iyo Bab al-Mandab. waxaa yaab leh labada markab ee la ku kala weeraray labada dhinac. waxaa weeraray mid Mareykanka, midka kalena Xuutiga. haddaba marka maraakiibtan maxay ahaayeen? maxayse labada dhinac u kala weerareen? haddaba tafaasiil ku saabsan sheekadaas ayaan idin hayaa. haddaba waxaynu ka hormaraynaa wargeyska la yidhaahdo Wall Street Journal ayaa goor dhaweyd qoray warbixin uu leeyahay ciidamada Mareykanku waxay sheegeen inay rasaas ku fureen oo ay weerar ku qaadeen markab la sheegay inuu isku dayayay inuu jabiyo xayiraadda Mareykanku ay ku soo rogeen Iran. wargeyska Wall Street Journal wuxuu ka soo xigtay arrintan mas'uul Mareykana. dhanka kale waxaa la sheegayaa in ciidamada Mareykanku ay markaasi rasaas ku fureen. haddaba safiinada ama markabkan ayaa wuxuu watay calanka Panama, wuxuuna isku dayayay inuu markaasi khilaafo xayiraadda Mareykanka uu saaray dekedaha Iran, iyadoo weerarkaasi uu dhacay goor dhaweyd maanta oo talaada ah. haddaba helicopter ciidamada Mareykanku ay leeyihiin ayaa la sheegay inay rasaas huwisay markabkaasi, kaasoo ay sheegeen inuu iska dhaga tiray digniino ay ciidanka markii hore u direen. meeshaas marka waxaa leeyahay markabay Mareykanku halkaa ku weerareen, helicopteray u qaateen, digniinteenu diideeleen. marka sababta loo weeraray markabka muxuu yahay? sababta Mareykanku markabka u weeraray, markabku wuxuu iska dhaga tiray xayiraadii Mareykanku saaray dekedaha Iran. wax kale dembi kale ma gelin markabka kaliya wuxuu iska dhaga tiray oo uu rabay inuu tago dekedaha Iran. Mareykanka warkiisuu diiday. taasaa soo baxday Hormuz. Iran marka ilaa hadda iyadu wax wara oo arrinka ay ka soo saartay ma jiro, laakiin sheeko kale oo yaab leh oo jawaab camal u eg ayaa ka dhacday Bab al-Mandab. Bab al-Mandab Xuutiga iyaguna markab kale nagta ka saareen. warkeenu diiday dekedaha Sacuudiga u socday. meesha la isku ciyaaraa socoto. wax meesha Mareykanka hadalkiisa la qaaday waa la bedelay bis asoo af carabi ah la soo saaray. asaga wuxuu yiri wuu iska dhaga tiray xayiraadii aan saarnay dekedaha Iran inuu jabiyo rabay. Xuutiguna maxay leeyahay wuu iska dhaga tiray xayiraadii aan saarnay dekedaha Sacuudiga inuu jabiyo rabay. nagtaa marka ka saarnaa marka Mareykan ma dhihi karaa Xuutiga marka waxaa tahay burcadbadeed tuugaa tahay abba waa kanaa meesha isbaara kuu taallaa markabkii soo mara nagtaa ka saaraysaa annagana intay noo taalla.
haddaba markaan tuso sheekada iyadana ku saabsan waxa ka dhacay baabal mandab iyo saacadihii lasoo dhaafay. haddaba wararkii ugu dambeeyey marka waxay sheegayaan in weerar uu ka dhacay baabal mandab, waxaana la sheegay in 4 qof oo la socday markab ay ku dhinteen kadib markii xuutigu ay weerareen markab marayay baabal mandab. haddaba wasiir ka tirsan dowladda Yemen ayaa xaqiijiyay in 4 ka mid ah badmaaxiyiinta markabka la socday la weeraray ayaa halkaa ku dhintay, sidoo kale 4 kalena way ku dhaawacmeen. xuutiga oo weerar ku qaaday markab ganacsi oo marayay baabal mandab. weerarkan ayaa la sheegay in ay markaa 3 ka mid ah dadkii dhintay ay u dhasheen Pakistan, halka midka kale ee markabka ku dhintay uu isna u dhashay Indonesia. 4 qof ee xuutigu ay dileen 4taba waa dad muslimiin ah sida la leeyahay. xuutiga markabkii Sacuudiga warkiisa diida Sacuudiga u socda oo meesha dekedaha Sacuudiga ka yimaada ama u socda nagtu ka saaraya asagan. hadda marka waxaa leeyahay xuutiga 4 u dilay asaga. Mareykanka wuxuu dilay malima la soo sheegay, laakiin xuutiga 4 u dilay 3 Pakistan iyo mid Indonesia. marka 4ta uu dilayba waxay leeyihiin warbaahintu waa 4 qof oo muslimiina. xuutiga macnaha waxa uu samaynayo muslimiinu ku dhibaateynaya laga wadaa, Sacuudigu uu dhibaateynaya. marka xuuti waxaas asagu wuxuu leeyahay ma qorna anaga. Sacuudiga asagana soo ataagay, asagana gardaraystay, annagoo heshiis naga dhaxeeyo. diyaarad Iiraan nooga timid oo Sanca ku soo degayso carqaladeey garoonkii naga weerar. maxaa lacag markaa dhaana lama ogolo yiri wax diyaarada annaga aan ogolayn inay idin soo degaan. ahlan saasmiya hayo waa noot alla. sidaasaa marka dagaalkoodii horta ku bilowday. marka hadda warkaasaa marka isaguna la leeyahay xuutigu iyaguna markabkaas ayay nagta ka saareen oo ay garaaceen. waaye marka sheekadaasu marka waa baabal mandab iyo Hormuz wixii ka dhacay goor dhaweyd ayaanu idiin soo gudbinay. wixii kaloo tafaasiil soo baxa barnaamijyadeeda kale aan ku soo qaadan doonaa. dhanka kale Pakistan wafdi heer sare u dirtay Tahraan. maalmahan oo dhan barnaamijyada ka sheegaynay Pakistan waxay casuumaad u dirtay Caraaqji, Qaalibaaf, imaada Pakistan imaada. nimankii Iiraaniyiinta caga wareejis maba tagayaanba Pakistan. hadda Pakistan waxay soo dirtay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha. waxay tiri ninkii Caraaqji waa noo iman waaye Tahraan ku qabo. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay, Caraaqji oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan wuxuu wada hadallo la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Pakistan. kulankaasna wuxuu ka dhacay magaalada Tahraan. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxaa la sheegay inuu la kulmay ninka la yiraahdo Abbas Caraaqji, inuu la kulmay wasiir daakhiliyaha Pakistan Muhsin Naqwi. waxaana ay ku wada kulmeen Tahraan iyagoo ka wada hadlayay arrimo muhiim ah oo ku saabsan wada xaajoodka wada hadallada. marka meesha waxaa ka jira warka Iiraan meelu saarayaan wuu cad yahay. nimanka ilaalada kacaanka Iiraan warkooda way sheegeen, waxay yiraahdeen shuruudaheena haddaanu Mareykan aqbalin meeshan yaa la isku daalin waa noo xirnaanay Hormuz. waatan lalahaa Cumaan Iiraan heshiye miiskay saaran tahay qadara tiri kana yiri ilaa hadda wax heshiisoo la gaari maarteen marraadii shay waxaad Iiraan beel u yaalaan baba yeelayso ilaa waxeeda la ogolaado. Caraaqji marka muxuu samayn karaa? kaligiis inta Pakistan baxo muu heshiis iska geli karaa? may waa inuu raaca amirta Mujtaba Khamenei in la raaco. Mujtaba Khamenei iyo ilaalada kacaanka Iiraan waa nimanka wadakaysta waay. marka nimankii Pakistaaniyiinta marka hadda waxay soo raadiyeen wada xaajoodka in la sii wado. waxaa leeyahay marka barashar ama culays Mareykanka uu soo saaray Pakistan waay naga dhameeyo. waxaa naga dhameeyay Pakistan ay ku soo Pakistanti marka waxay u yeertay Caraaqji iyo iimaaday dhaad way fahmeen marka inaan meesha waxba ka soo baxay.
maraykanna mowqifkiisa taagan yahay mujtabana mowqifkiisa taagan yahay marka caraaqsi maxay ka qabanayaan meesha hadda marka wafdigii Pakistan taaraan uu yimid bixiyay wasiirka gaashaandhigga ee Pakistan waaye marka ugu dambeyntii wasiirka gaashaandhigga ee Pakistan ayaa waraysi bixiyay wuxuu leeyahay Pakistan waxay tiri Mareykanka iyo Iran waxay qarka u saaran yihiin inay markaasi isku soo dhawaadaan oo heshiis ay wada gaaraan daa'ima wasiirka difaaca Pakistan Nicolas Khawaja Asif wuxuu u waramay wakaaladda wararka ee Bloomberg ee waddanka Mareykanka wuxuu siiyay waraysi maanta Talaada wuxuu sheegay Mareykan iyo Iran inay aad isugu soo dhawaanayaan hadda oo ay ku dhow yihiin inay nooc tartiib ah ama isku dubaridida ay hadda ka heshiin doonaan dagaalka u dhaxeeyay labadooda oo macnaha dagaalka uu dhamaan doono waxaana uu rajo weyn ka muujiyay in hawshani ay dhamaan doonto maalmaha soo socda oo aadka u dhow in heshiis la isla gaari doono warkaasina marka waxa sheegaya ninka leeyahay wasiirka gaashaandhigga ee Pakistan marka meeshan marka dadaal culus socda Pakistan iyo marka waxa leeyahay Qatar way isqaybiyeen Pakistan hawshan Mareykanka iyo Iran iyo inay maartay hawsha heshiis la gaaray culays ka saaraysa hadda wufuudeed diraysa wafdiye u soo dirtay halkan Qatar oo iyadana dhexdhexaadiyaasha ku jirta iyadana waxay sii wadaa Qatar wada hadalladii Oman iyo Iran u dhaxeeyay iyaduna halkaas ku mashquulsantay hadda goordhow waxa arkay Qatar war soo saartay leh mar dhow heshiis ayaguna gaari rabaan Oman iyo Iran marka waxa soo dhan waa iska huuhaa waaye Iran warkeedu waa cad yahay shuruudayda yaal waa ku iman waa heshiinayna shuruudayda maxaa ka mid ah Hormuz in looga haro lacag baada ka qaadato maraakiibta canshuura waxay rabto samayso isbuucida habayso Mareykanna taas mar rabo waxa leeyahay waa jabtay waa laga adkaaday Iran oo waxba qaadayna u tagtay Iran oo lacag qaadayso taajira ka soo tagtay dagaalka saasadu ku dhamaado marka sheekooyinka warka way isku waasheen barnaamijkeygii labaad waa naga taadi alla idmo wixii kale warar soo kordha barnaamijka kale ayaynu iskula socodsiin doonaa inta aan mar kale kulmayno like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka nabadgelyo